hooyadii aabbahay markasta ka taxadaraayeen oo ilaahayeen kaale agteena ku umul si hooyadii xamar joogta igu leed hooyo kaale iyo maaw sayayim fiican tahay hay'adda cunuga alleed ana dhalana goormad cunug dhashan waa qura yaabanahay bismillaahir rahmaanir rahiim warkaas isa xaqiij. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin waad salaamantiin. waa anigoo ah Farxaan Yare. waxaan maanta halkan usoo fadhiistay iguma yeedaan baran inaan social media ku badanahay ama kasoo jawaabo waxyaabaha qaar ama bulshadeeda inta been abuurka la wareegaysa aan kasoo falceliyo iyo inta xunba. maanta halkan waxaan usoo fadhiistay arrin aan qaadan waayey oo bulshada Soomaaliyeed iyo ehel iyo qaraabo iyo waalid iyo walaalba ka dhawaysay. arrinkaas oo ugu dambeeyay dhex wareegay social media. arrinkaas waa arrin gabadh walaashayna ay la soo fadhiistay wigi dhaweeyay barteeda YouTube-ka ah kaga sheekeynayay ilmaha yar. waxaan intaas oo dhan aan la aamusnaa wax kale ma yahayn. waxay ahayd xaqiijin. dadkuna waxay jecel yihiin wax la taaban karo. wax la taaban karo. horta awlaadda waa hadiyadda ugu qaalisan oo Ilaahay bixiyo. qof walba uu jecel yahay inuu awlaad helo. qof walba uu jecel yahay waa hadiyadda ugu qaalisan ee dunidan oo Ilaahay bixiyo. ciyaar ma galaan awlaadu. ma galaan wax lagu ciyaaro. ma galaan madax bili aadan qof dhanoo nool wax lagu ciyaaro ma galaan. waxa dhacday arrinkan markii social media soo dhigtay isdhex socday anigii dad badan ii soo hambaleeyeen jawaabaha qaar dadka iga sugayeen su'aalaha qaar ay weydiinayeen. waxaan ku qasbanaaday inaan xaqiijiyo oo la xiriiro dadkii ugu dhawaa si aan mas'uuliyadda iga saaran maadaama aad aabo noqoto mas'uuliyad baa ka saaran ilmahaaga iyo xaq. marka mas'uuliyaddaasi aan u guto oo uga warhayo darteed. waxa dhacday in intii ugu dhaweyd aan ismaqalno aan wada xiriirno oo ay dhahaan waa wax ka jira ma lahan ilmaha iyadu may dhalin waxa dhashay gabadh waxa isku yihiin oo dhimatay Allah naxariisto. waa ilmaha agoona laakiin abi waa nool yahay iyadu may dhalin. waan yaabay markaasaan dhahay waay maxay ka wadaa ma fahmin bal anagu ma fahmin waxay ka wadaa. waxaas dhahay waa prank sida caadiga ahayd ama waa kowda April bay soo wadaa ama waa prank isoo wadaa maadaama ayna jirin ilma ay dhashay. okay waan u qiil sameynayay intaas oo cisho. waxaan islaaway kasoo noqonaysaa waxay oranaysaa prank maadaama aan xog helay inaan ilmaha iyadu dhalin. may sameeyno kamay soo falcelin. waxaan ku qasbanaaday hambali dadka faraha badneyd waalid walaal asxaab ehel aanan jawaab sax ama jawaab buuxda siin karin iyaduna ay kasoo falcelin weyday arrinkii. waxaan ku qasbanaaday inaan iyadii la xiriiro oo ay idhaahdo sidii ay baraha bulshada la soo dhex fadhiisatay ay anigana igu jawaabto. su'aalaha qaar waxaa jirta aan weydiiyey oo isweydaara oo inaguba aad garan kartaan wixii been ah iyo wixii run ah. qofna horta qof walba wuxuu jecel yahay awlaadu hadiyadda ugu qaalisan maanta nolosha. micnaheeduna ma aha inaan soo fadhiistay inaan u jawaabo gabadha walaashay ama ilma aan dhalo aan inkiro inaan soo fadhiistay meeshan waxyaabaan laga aamus karin baa jira. hore baan u aamusnaa wax kasta oo dhacay ama wax kasta social media socday ama wax kasta oo dadka sameeyay waan u aamusnaa waayo dhaqan iyo hiddo uma lihi gabadh walaashay oo shalay aan nolol wadaagnay maanta inaan soo fadhiisto oon u jawaabo ama erey xun idhaaho ama aan aflagaadeeyo igama geedo dhaqan oo wali. waxaan aaminsanahay ninka ragga sax iyo qaladba inuu isagu ugu tanaasulo gabadha. waa cawrad wayna la dhasheen wayna dhaleen waan dhali doonaa sax iyo khaladba in loogu tanaasulo iyo qurux badan. waa sababtaan u hadli waayay ama meel aan usoo fadhiisan waayay ama aan uga falcelin waayay waxyaabihii dhacay hore. laakiin tan maanta wax laga aamusi karo ma ahan. micnaheeduna ma aha inaan iyada u jawaabayo waa inaan
aan xaqiijiyo waxyaabahan jira ama aan ka hadlo. wax laga aamusi kara ma waa madax bini aadan, waa ilmo yar oo aabihii nool yahay hooyadiina ilaahay laha qaatay. in inta meel loola soo fadhiisto la yidhaaha anigaa dhalay marxaladaasaan la soo maray, aabihiina waa hebel. horta waxaan dhaqan u leenahay ma aha. marka hore gabadha walaashay waan u qiildeeyay oo waxaan lahaa waxay odhan doontaa waa prank ama waxay odhan doontaa waa 1 Abriil. waan u qiildeeyay waxaas lahaa way ka noqon doontaa, way ka fircelin doontaa. marka jawaabaha bini aadanka ay ku weydiinayaanna dee xal baad u heli kartaa maadaama aanad dee wax aanad xaqiiq siin karin. way dhici weyday, way sameyn weyday, waan ismaqalnay. waxay ii sheegtay sidii ay baraha bulshada ka sheegaysay in ilmaha iyadu dhashay, anuguna aabihii yahay. mar labaad haddana dad iyada u dhow oo dadkii ka duwan ayaan ismaqalnay. sidii dadka ii sheegan bay sheegeen inay ilmahan iyadu dhalin, ilmahan oo hooyadii dhimatay alla naxariisto, aabihii laakiin uu nool yahay. markaa ay soo qaadatay. horta wax qurux badan maaha, wax fiicanna maaha. wax walba de horta ugu dhabaalayn kartaa maadaama aad qof caana tahay, ma fanaanaha ama wax walba aho wax kastoo kusoo gaadho ugu dhabaalayn kartaa. oo waxaad la sameeyay nin dulbaan tutay ilaaq dalbi. laakiin waxyaabaha qaar inaad qaadatid waa laga qurux badan yahay. waxyaabaha qaar lama qaadan karo, waa waxaan la qaadan karin. waxaa ku jira hadalladeedii markii youtube ka hadlaysay ay lahayd hooyadii oo rabtay ama iga codsatay inaan agteeda aan ku umulo. hooyadeed wax alliye waxaa ka ogeyd maamadu ma jirin. waxaan hayaa cod maamad ah oon idinla wadaagayo. waxaan hayaa cod labadeedu aan ku wada hadalnay oon weydiinayo ama aan ka leeyahay maxaad iisu sheegi weyd intaas. weynahan hooyada maad u sheegtay. horta gabadh hooyadeed hadday u nooshay wax ugu dhow ma jirto, ama ha ka dheeraata ama ha u dhawaatay. xaaladeedii marxaladeeda qasab way ogaanaysaa. marka hooyadii dhashay haddayna ogeyn dadkaa ku xeersanay ugu dhow na ayna xaqiiqda jirta ay la soo wadaageen 1 maalin 2 maalin 3 maalin 4 maalin. kolley wax qurux badan maaha waxaas in dadka loola hor yimaado. aad bulshada Soomaaliyeed la hor timaadid waa wax laga qurux badan yahay. kolley bulshooyin iniga garsoorkii ah, iniga wax kala go'aamin kara, iniga wixii qaladay wixii saxa kala arki kara. ilaahay hooyadii aabihii markasta ka taxadaraayeen oo ilaahayeen kaale agteena ku umul siiba hooyadii xamar joogtay igu leed hooyo kaale iyo maaw. أنا محاولت أنا هواي إن عندي بقولة تجا يعيد والبهارسن إسليسو قبل هذه أميس إليسا أميس إسليسا بكوس أنا أي كل ساعة. أوكي واد مغليسين. عدك مع مدن دقيست. السهيم في عنتاي حيت عنك الله أنا أقبلنا قرمت عنك دشنا وأبو قريابنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وركاس إسحاق. عدك مع مدن دقيست يدو حكوا هالليست. السهيم في عنتاي حيت عنك الله أنا أقبلنا قرمت عنك دشنا وأبو قريابنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وركاس إسحاق. صاد مقليسين ودا وتاني يدا حكوا هالليسي ما مدنا ودا يستين. waxaad kala dileeytiin iyada laftirkeeda markii ugu dambeysay wada xiriirnay waxay iga lahayd iyo waxaan isku idaarsanay marka in la ogaado oo la soo ogeysiiso aniga ma soo ogeysin ma soo dirin hatta hooyada ma ogeysin marka maxaa ka waday أنا بعرف لك قصة أوشيت. hooyada maxaa ku dhacday محابين تأورجنا تا بشرف إسكرت مياه محاولين ساعدين عليه. صح. إنك تدعون قيس مرنا. ودين تعالى سامرنا ونولي نقول خصوصا كفر اسمي عنه وجاونا استك. بارح حتى إني سو شكت هذا. صدق مغلسين أصحابي. كل إني قرصور كي إني وح كلا صاري كرا. كل ما فاهمين قبل ولا شيء وحي كودي
waxay ku falaysay beentaas horta beentu ma dheera bulshada Soomaaliyeed kulay niga garsoora iniga indideynaya inta wixii ka dambaysa waxyaabo badan oo hore jiray oo been abuur fara badan oo bulshada iga imanaysa laakiin kama soo falcelin oo waxa jirta wax aad qaadan karto iyo waxaan aad qaadan karin waxaan uga soo falcelin waayo waxaan ogahay waxaan ahay waxa tahay markaad ogtahay iyo shakhsiyadaada iyo qofka tahay waxaan ahayn kuma dhibi karo laakiin waxyaabaha qaar laga aamusi karin ayaa jira madax bini aadan ilmo yar oo nool oonad xaq ku lahayn kama aamusi kartid ka Soomaaliyeed waan salaamaya dhamaantiin kullay idinka garsoorkiya wax walbana wayna hor yaalin idinka idin deynta ka dambayso waan salaamaya dhamaan Soomaali maxamed